haddii barakicinta iyo ka faa'iidaysiga khayraadka ay caadi ka noqdeen maamulkan markaas Soomaaliya waxay u qalantaa hoggaan ka wanaagsan haddii madaxweyne xasan uu caadaystay barakicinta iyo ka faa'iidaysiga khayraadka qaranka markaas waxaan rajaynaynaa hoggaan ka wanaagsan haddii madaxweyne xasan uu caadaystay barakicinta iyo ka faa'iidaysiga khayraadka qaranka markaa waxaan rajaynaynaa hoggaan ka wanaagsan dadkaygu diida Allah dalkan yaa iskale dalkan yaa u maqan cawaanka yaa iskale ardal qarankan waxaa leh dadkiisa awoodda waa in dib loogu celiyaa muwaadiniinta ma aha koox yar oo xukun haysa liga yahay baaraydo liga yahay baaday dadkiisi dayacay tukaale oo diiran oo dunida wan ka xaaray dadkiina ka xaaray isbeddelka dhabta ahi wuxuu ka yimaadaa midnimada maanta waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha inay midoobaan dalkan yaa iskale dadkan yaa u maqan cawaanka yaa iskale ardal liga yahay baaraydo liga yahay midoobaan waxaan u taagannahay dadka saboolka ah ee guryahooda laga barakicinayo annaga codkooda ah anigoo ah isbahaysiga mucaaradka ee xorriyadda iyo xasiloonida waxaan si adag u cambaaraynaynaa hay'adda khayraadka dadweynaha wan ka xaaray dadkiina ka xaaray dayacayana baaday dabkaana nagu sheeday dambigayan ka galnay dambiga As the opposition coalition for freedom and stability, we stand firmly against the looting and theft the ruling party is inflicting on our nation's resources and against the forced displacement of the most. haddii aan nahay ururka mucaaradka ee isbahaysiga xurriyad iyo xasilooni waxaan si buuxda uga soo horjeednaa dhaca iyo boobka uu xisbiga talada haya ku haya hantida qaranka dayacayana baaday dabkaana nagu sheeday dambigayan ka galnay dambiga haddaanan nafteenna u hadlin qofna noo hadli maayo kor u qaad codkaaga difaac xuquuqdaada ilaali mustaqbalkaaga haddii barakicinta loo arko mid caadi ah oo khayraadka qaranka si aad taxadar lahayn loo qaato markaas dadkeenu waxay xaq u leeyihiin hoggaankan ka wanaagsan haddii dadkeena la barakicinayo oo hantideenna qaranka la qaadanayo markaas waa inaan rajaynaa oo aan ka shaqaynaa hoggaan wanaagsan